munaasabadan oo xadhiga looga jiray wajigii koowaad wadada ay diyaaraduhu ka ordaan ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ay ka dhacday gudaha garoonka diyaaradaha magaalada waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland sidoo kalena waxaa madasha joogay mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii Soomaaliya iyo kuwa hadda ka haya xilal boqor Burhaan boqor Muuse ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii munaasabadan lagu casuumay kelmadana ka soo jeediyay safiirada Soomaaliya u fadhiya China iyo Talyaaniga oo iyagu lahaa gundhiga wajiga koowaad ee ladaaha looga rogay garoonka magaalada Boosaaso injineer Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camey ayaa waxa uu uga mahadceliyay cidii gacanta ka geysatay dhismaha garoonkan arigaas dabadeed waa joogaa laakiin waxaan anigu soo taagay mahadnaq aan uga mahadcelinayo in allaale iyo intii hadday dhaqaale tahay hadday fakar tahay hadday aqoon tahay haddii ay duco iyo karaameyn tahay garoonkan isaga ay maanta isugu nimi furitaankiisa dadkii ka qayb qaatay inaan uga mahadceliyo oo ay ugu horeeyaan runtii Talyaanigu wax iskala markaan soo doonana raggun baan ka raadiyey raggaasna waxay ahaayeen dowladda federaalka iyo dowladda Puntland madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa ayaa munaasabadan ka hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhismaha garoonkan iyo sidoo ku yimi budgetka loogu talagalay mashruucan oo netka ay u baahan 6 milyan iyo 300 kun dollar lacagta ku baxday 3 tibarkeed waa danta marka nimankan mashruuc ma aanan siinin way noo yimaadeen contribution bay xoog la ku bixiyeen mashruucan la hirgalo tayada airportka iyo dhaqaalaha ku baxay iyo waxaan haysanay wax soo dhawada ma haysanay marka aad u maasayeen shaqada ay qabteen iyo sacrifices-kooda aad u maasayeen waxa la yiri hadii mashruuc noocaas waxa la yiraahdo waxa la yiraahdaa single source waxa u baahan tahay aad ka soo saxiixdo dowladda federaalka dib ugu laabto markaas prime minister waxa saxiixay Cabdirashiid Axmed isaga ayaa ma hoos galay isaga ayaa markaa soo ogolaaday in si gaar ah hadda CCCC marka isaguna maanta gaarka runtii ayuu leeyahay waan ku mahadsanyahay dadaalkiisa ugu dambeyntii waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika ku nool jamhuuriyadda Soomaaliya si gaar ah u soo hoyatay shacabkeeda dadka reer Puntland iyo dadka Boosaaso intaba guushaas sidii loo tilmaamay dadaal badan oo waqti badan iyo juhdi badan soo socday oo mas'uuliyiin iyo maamulo iyo hoggaano kala duwan waqtiyo kala duwan ay isu soo dhiibeen ayuu ku yimid taasi waxay daliil u tahay in wax yani maalinta lagu riyoodo isla maalintii hore uga dhaqan galaya inaanay jirin markii ay joogto dib u dhiska dalka Soomaaliya meel dheer ay ka timiday haddana meel ay maraysaa meel wanaagsan iyo jihad wanaagsan way u socotaa dalka waxa ka qabsoomay iyo wanaagga ka dhacay runtii wax aad iyo aad u weyn waay wax badanna waa loo dhiman yihiin dabcan oo muxuu ahaa meeshii aan rabnay maynaan gaarin ولنا هم دول وحبضنا نور الموضوع ده هرتنا ويصير تاي لكن وحبضنا باقي قبصهم ما أنت سياسة ده يو قابك دولة دمال الدرب وقابيسين محمد هنا أيضا نقدمه دلك الصومالية يعني ما أنت نظام كفدراليزم كبغلقل كيسي والله الاستاج وكسر بمالتي فرح الأسكولة في فقهي ولا لها هبل با فدراليزم جديد غير الدجال هبل با لقد ديديا وكيم دمانته khudbadaha kadib waxaa si isla mid ah garoonka xadhiga uga jiray madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Puntland safiirada Soomaaliya u fadhiya China iyo Talyaaniga Faadmo Taxadar Kalsan TV Boosaaso